ayay gacan ku saydheene oo hal suug markii lagu riday kala sabqaaleene sibiqda socod xumada iyo naasaan kala sabaynaya naasalka dhiga hadduu soo socdaa ragii saarka kululaaya soo dhawaada qaraabo meel kasta oo aad dunida dacaladeeda ka joogtaan qalbiga ayaan idinka salaamayaa macluumaadii ugu dambeeyay ayaan rabaa inaan idinka dabageeyo xogihii ugu dambeeyay ee jiida dhaqdhaqaaqyo culus oo xilligaani socdo sargaal caan ah oo la qarinayay geeridiisa oo hadday la xaqiijiyay sawirkiisa darajadiisa iyo xogtiisa oo dhan iyo dagaalkii uu ku dhintayba halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa iyo sidoo oo kale markaasi inta ka dhaxaysa Qorlugud ilaa iyo Hargeysa oo gurmadyo xoogan xilligaani ay soo baxayaan colaad la go'aansaday si bareer ah in loogu soo qaado deegaanada SSC Qaatumo iyo ciidamada SSC oo difaac ku jiro oo fariin aan u diri doono halkana aan markaasi fariin uga diri doono dhammaantiin muuqaalkan si share gareeya dhammaantiin like gareeya meel dheerna gaarsiiya YouTube kana ku soo biira aad u mahadsantihiin wixii ka dhacay Qorlugud maalin ka hor waxaa markaasi suugaan ku soo koobtay mid ka mid ah hablaha geesiyaasha ah ee SSC Qaatumo oo gobol cajiib ah ka tirisay xataa waxa ay sheegaysaa hablihii beesha habar jeclo ee sida xun muuqaaladoodu ay u soo gaareen baraha bulshada ee wax aysan mataqaanaayde aan la daawan karin laga arkay mar qura dagaalkiina loogu magac daray ficiladii ay hablahaasi sameeyeen hadda waa taa gabar ka tirsan SSC Qaatumo oo fariin yaab leh oo gabay ah dirtay ilaarka indhaweesadii gabay ma tirin sagaradeedii waa taan salkii dhigay markuu suuqu qiiq gabay xalay baa siqdii dhexel la yiri socoyay ii dooriye reehudna maydkiisu raday shalay sagaalkii silic baa ku dhacay wiilashii Muuse soo siday saldhigiina waa laga furtay saadadku waday surka go'ay salaamadu ka dhacay siliciyay ii dooriye wiilalaan safaad kaba aqoon ayay gacan ku saydheene oo hal suug markii lagu riday kala sabqaaleene sibiqda socod xumada iyo naasaan kala sabaynaya naasalka dhiga hadduu soo socdaa ragii saarka kululaaya orod jeclay waa maxay naagasaha gurmadka aad iyo aad markii halkaasi joogto gabaygaasi waxa uu aniga aragtidayda markaan fiirsay xataa ka sheekeynaya qaabka ay wax u dhaceen oo suugaan ah weeye nin wax arrin aan la yaabay baa jirto oodan u baahantuhu inagooda yar shiikhooda wadaadkooda dumarkooda ragga dagaalka ku jiro kuwan tusbaxlayaasha qoriga ah wato mid kama taqaanay gaambariga ah midka aan ka wato war cunuga geeljiraha kulli waa wada gabyaa waan la yaabay qofkii saa u hadlaba gabay buu ooda ka qaadaya markay saa u hadlaan gabay buu ooda ka qaadaya macnaha suugaantu waxaad halkaa ka garanaysaa in ay hiddo u leeyihiin tusaale waxaa idinku filan marka hadda gabadhaasi aragteen ninkan odayga ah baa wax yar oo sikimo ah wuxuu ku soo koobay wixii dhacay isagoo markaas sina tuduciyo taariikhda galay suugaanta Soomaalida goobta ka tiriyay inuu baraagtii gobol magan balligii baraagii ku yaalay buu ka tiriyay oo ciidamada SSC xilligan gacanta ku hayaan ayuu ka tiriyay arka كنت قندعين يا هنقول بس معليان كنت بانا هايتيا بران وما صبها بحنا هير يري عارف دي وما بريران وقتي كيسكم سو دعان بابو سو دغن inta taariikhda gashay ee tudciidaasi kamida waxa kamida bahalaha yaryari aar fadhiyo uma bareeraan waa taariikh cajiib ah weeye waa gabay cabirayo ama tudciyo cabirayo mataqaanaayay ninkaas hanka iyo qabka iyo qalisnimadiisa waxaan ku yiri gabadha yarta iyo wiilka yarka iyo odayga iyo maamadu kulli wada aftaan iyo abwaan ma sha Allah ilaahay u siiyay xogta jiidihii intaan u gudbin bal aan idan tuso nin sarkaal ah oo u dhashay beesha Ayuub ee Isaaq oo la qarinayay oo ku dhintay dagaalkii ugu horeeyay oo Qorlugud ka dhacay subaxdii ninkaas oo darajadiisu tahay saddex xidig la ama kabtan xilligaana la rabay ama Muuse Biixi oo qorsheynay una ballan qaaday inuu ka dhigi doono korneyl waa iska korneyl oo hadda uu xaqiijinayo afkiisana uu ka cadaynayo ninka isku sheegay afayeenka habar jecel Maxamed si arag oo reer Qorlugud ah سولمدو إنه يهما فيلا يسقى عدونا ينكا من أيوب أهاب الله يهي ربي هؤلاء حريستو وشهيد أيوب الله يهي نكا سور كسوا كنا
waana kana ina si arag oo cadeynayo geeridiisa way qarinayeen marka waxaan leenahay wargooja caddo oo xere ciidan ah baa saraakiisha rag idinka dhimanayeen nooga qarsoomi waayeene maqariligood tirsan dadku joogaan ba wax nooga qarsoomayaan waa maya mar hore la sii shaaciyay sawiradiisa lagu baahiyay haddana isaga garay isagoo gaari wada jiray ila arka qaali oo ayuub oo iga dhintay ilaahay naxariistiisa ma ka waraabin saaxiibka Cabdi Koodle ilaahay ku waalidkii baa dhaafo Allah u naxariis nin buqaariya buu ahaa uu shahiiday aad iyo aad markii halkaasi joogto oo jeedaan hortay wax badan ay qarinayaan waa jiraan ninkii caara ah dhaawiciisa cid kale haweydiinina meeshaas ku dhaawacmay waliba isagoo la sanduuqyada hal ilaaliyo ayuu dhaawacmay waana dhaawac culus waana la qaaday saraakiil kale oo badanna waa aniga xogtooda iyo magacyadooda la wadaagay kana ku darsada ilaa 5 sargaal oo weyn baa meeshaasi ku dhimatay marka intaas laga soo tago jabkaasi gaaray nimankaasi jiidii ayaan xog idin ka siinayaa horta ilaa maanta ilaa shalay gurmadiya socdo labada maalmood dagaal ma dhicin ma taqaanaa fariintan halkan uga diray ciidamada SSC iyo dadka halkaasi ku sugan ee dhulbaahantana waxa ay tahay madina tiidin ciidamada ugu horeeyay idin soo gaari doona maalmaha soo aadana waa ciidamo ka soo baxay gobolka Mudug dagaalkan waa la wada galayaa meelaha harti oo dhan dagaalka way soo wada galayaan ma taqaanaa hadda inta ka sii horeysana yaan la isdhigan guushu ma taqaanaa wax meesha isku urursanaya waa rag ciidankaasi qorligu lagu ururinayo xilligan hadda yeelsanina ciidankaasi ciidan ma taqaanaa la diyaarinayo way ciidan maleeshiyad oo reer guuraa ah oo ma taqaanaa tolla ayay ku imaaday markay ciidamada militariga ah ee dagaalami jiray iyo kuwan ma taqaanaa reer miyiga ah hadda askarigu wuxuu ku xisaabtamaa waqti iyo ma taqaanaa rasaas laakiin sigeel jiraha ama reer miyigu waa ay naf diriraan ama nafurnimay dagaalamaan sida marar badan ba dhacday marka waxaan leeyahay yaan la isdhigan guusha yaan la isa siin ma taqaanaa hoos la iska diyaariyo hal la diyaar garoobo ciidamada fariintan hal la wada gaarsiiyo nimankaasi dagaal cad bay qaateen ma taqaanaa wayna bareereen waana u jeedaan wayna isa soo urursadeen arinta gurmadkana waxba ma taqaanaa hadda qayle kama soo yeerin ciidamada SSC gaar ahaan ragga jiidahaasi ku sugan weli iyadoo SSC ah ayay waxay la dagaalamayaan nimankii 34 sano sheeganaya dowladnimada iyo qarannimada laakiin gurmadiyadu anagu xoga dagaal iyo arrimo ciidan mar raba inaan ka sii hordhaco beesha harti waa diyaar waxba dhulka kama yaalaan sidii maalintiiba ay qoryaha u soo halabsadeen iyo taangiyada iyo kaarayaasha ee durbada dagaalka uga imaadeen haddana hadduu culays imaado waa diyaar laakiin si kale ah waxa la isleeyahay dhiiranaan iyo sidoo kale markaas diyaar garow waa in nin walba meesha uu joogo uu 5 nin ku noqdo diyaar garoobo waliba ragga dhulkaasi aad ku kala yaqaaneen hawdku waa inay ma taqaanaayay hoggaanka ciidamada la wareegaan tan kalena meeshan waa hawd ma ahan buurihii laascaanood iyo ma taqaanaayay dhulkii lagu dagaalamayay tira badni ayaa la isku jiiraya waa in halkaas ciidamo badan la geeyo lana diyaar garoobo jiidaha oo dhan waa in ma taqaanaa ciidamada jooga fariintan ay gaarto oo diyaar la ahaado intaasaan kusoo kufinaya wix macluumaad dambe shukran halkan ayaan kula wadaagi doonaa saaxiib yaraad mahadsantiin